السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي هبون دي لهان تيمبا داوديال كسو دواده الهيس ميديا عاشير hooyadeed oo la ilmaysay farxad kuwii kufsaday gabadheedii oo la toogan doono 11 Febraayo 2020 ragii kufsaday caashayar oo ku kufsaday gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ayaa lagu xukumay xukun dil ah kadib markii maxkamadda darajada koowaad iyo talabaad iyo saddexaadba ay isku raaceen in raggan la dilo laguna dilo gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso ee Puntland. muddooyinkii u dambeeyay waxaa la isla dhexmarayay in maxkamadda racfaanka Puntland ay amar ka sugayso qaybta fulinta uu hogaamiye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland kuwaas oo shalay toole beenooday kadib markii madaxweynaha Puntland uu sheegay in maxkamadaha Puntland ay shaqo u leeyihiin kiisaska ay hayaan aanayna khusaynin arrimaha maxkamadaha. kiiska caashana uu yaalo inay fuliso maxkamadda darajada koowaad ee Puntland. kadib hadalkaasi ayaa xeer ilaaliyaha guud ee Puntland waxa uu ku dhawaaqay in la dili doono raggaasi lana dili doono 11 Febraayo 2020. maamada dhashay Caasho ayaa soo dhaweysay sheegtay inay heshay gabadheedii cadaalad halka aabaheedna uu barxadda Garowe farxad ku dhacay kadib markii uu maqlay arrinkaasi. muddooyinkii u dambeeyay waxaa la isla dhexmarayay in family ama qoyska Caasho ay u guureen dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya halkaas ay degeen kadib markay u cabsadeen carruurta inteeda kale oo ay ku jiraan gabdho iyada Caasho ka waaweynaa. Caasho Ilyas ayaa ilaa intii u dambeysay ama muddooyinkii u dambeysay waxaa bulshada Soomaalidu ay ku dhawaaqayeen Caasho Ilyas cadaalad hesho. Caasho Ilyas cadaalad ma heshay, balse shalay toole ayaa Caasho Ilyas waxa ay heshay cadaalad, balse weli fari kama qodnee waxaa la sugayaa 11 Febraayo iyo 2020 in raggaas lagu qisaasi doono iyo in kale magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. haddaba daawadayaal ma la oran karaa Caasho Ilyas cadaalad ayay heshay, mase la oran karaa sidii hore ayuu soo jiitamay?